qofku wuxuu ka dhigi karaa dadkiisa iyo qaraabadiisa dad wada haysta dad wax qabsada dad iyaga istaageera dad aan masaakiinba lahayn uu ka dhigi karaa markii dadku ay tashadaan oo iyagu ay wax istaraan oo kii aan waxaysan shaqo la geliyo inuu shaqaysto inta kale hadhow qof wax la siiyo lama hayo waa aragteena umaynaya sanad kasta waxaa nagu dhaca fatahaad iyo abaar Soomaaliya waa aragteen sanad kasta fatahaad iyo abaara socota kul roob baa imaanaya biyana qaadaya waa nagu soo noqonaya mar kale nagu soo noqonaysa haddii marka iskuuladii aad ku dabaqdo hal cilla ay sanad kasta idin haysato cilladaas aan laga gudbeen waa maareyn la'aan waxaa laga yaabaa in dhaqaale loo hayo wax badan loo hayo laakiin cilladii weli waa taaganta waa naqaan amana marka qaar waxa is leedahay war annaga Soomaali markaan nahay waxaan ku fiicannahay sida dhibka loogu noolaado ma sida dhibka looga baxo taa ku fiicannahay waagi bakaare ee dariiqyada dhan wada xirnaayeen xageen bari jirnay bakaare waa aadi jirnay farjanno haday xiranto meel kale hadii kan ka xirma kan ka soo wareeg jidkaana xirma inta u soo mar haday xamar inta ka xiranto afgooy tag balcad ka soo gal kor marka u fiirsada idinka yaqaan qof walbo mashkalad kasto idin ragaadisa oo muddo idin haysata oo aadan xalinayn waxa maamul aan haysata qaybtaada haday tahay qayb walba ay tahay mashaakilka hadii la qoro leeyahay qof walbo mashaakilka ugu badan ee ugu soo noqoshada badan meeshiina qolo walba waa qori doona aktar soo noqoshada badan waa tee mushkilada ku haysata ee kugu noqoshada badan maamulaha iskuulka oo aad markasta xalisa waa tee maamulka maaliyadda mushkilada ugu badan xalisa waa tee imtixaanaadka mushkilada ugu badan xaliya waa tee arrimaha ardada maxaa ugu badan oo xalisa markasta mushkilada sadeexa baarkaas kaaga baahan tahay hal qaacida qabso shaygaani haddii uusan xal balahayn hada mushkilad ma ahaba shaygan xal ma lama mushkilad ma xal ma leeyahay ha mushkilad uu yahay mushkilad ma tahay xal waa leedahay waxaan xal lahayn ma jiro marka waa in la xaliyaa mushkiladaas marka bulshada marka laga fiirinayo طبعا aqoonteena way ku saabsantahay qof dad kasto anaga inaga mida hadii hadda la weydiiyo imisa book ama kitaab oo mawduuca khuseeya aad akhrisay maxay noqonaysaa mawduuca idaara madrasiya run hadii loo hadlo imisa qof wax ka akhrisay idaara المؤسسات التعليميه imisa qof wax ka akhrisay idaara الماليه للمؤسسات التعليميه imisa qof wax ka akhrisay meeqa kitaab aad akhrisay شؤون الطلبة وإرشادات الطلبة أردد إن لا تهليه وwaxa arkaysaa mashaakil fara badan oo arday qabsaday oo dad ay ka bixinayaan imisa qof akhris mawduuca daalaca ma dhibin buuka daalacata iyo ustaadka daalacata waa isku meeshi laakiin qofka aqoon markay u kororto waxba u kordhay wuxuu arkayaa mushkiladan siyaasa loo xalliyo meel ku dhibtoon jiray arkaa maantana waxa soo baxay caalamka internetka fiiriye كتب عصر قدام بياسو أركز لما كنا أتلا بدأ وإسكاه الله بأسات تعليم السلام معموله والمشكلات كأوجو بدن حلناها قفكو بركو وحاس أقوى كتر صدا خبرة دي كتر صدا هذا أنت أنا هذه خبرة دينا الأوريو ما يقول كتاب أقول كرنا أو إسكول كسبسن مسماها أنت أنا هذه الأوريو إسكول كمالك وحصوص عارك أنا سردك هالكتاب وموضوعك الله وصار كلام ومعلمين تيسي وحسبان لكن أنا ما هيرتا حبيب بس لكن قفك وإن وماشي وحكى برنايه من الهبال الجودي وأنا سأخرسها سأوجوكت أنت اللي قاعد بدل ماشي مالك الجودي وتهدى الشيء جاي مالك الله واللي أنا ما أدري قلين وحاولت جالس قفك هراك هري وهو رئيسنا فيلشي هراء وهو رئيسنا هذا دي أن ما هذا إسكولك أو هذا هي شؤون الطلبة وحقرتي ومشاكل تس سنة كان أقرأت قيبت مالية مشاكل هذا كوجو بدن أقرأت تس إدارة المدرسة بحاك وجودنا الأساق قرأت فايلينج سيستم هدو قفكو ليه هي أوكي وحن قفكو إدارينا وهو نفتي سيون إداري نفتي سيون معمولو نفت هذا معمشو وحباكو معمولو هذا أباها المرة تطبق قضبة مهمة قفك استوى وحك الدولة قيم يا مبادئ waxyaalaha markaa sameynayso furayaal waxa ku ah qiyamka iyo mabaadida aaminsan tahay taas waa bid koowaad
calaaqaadka qof kasto inta laga mid anaga naga mid waxaa laga rabaa calaaqaadka dadka uu leeyahay xiriirka maamulaha haddaad tahay dadka lama hadashid qolkaada isaga jirtaa maamule waxaan soo arki jiray xafiiskiisa fadhiya ardadan aan warba ka hayn xafiiskiisa laakiin haddaa u timaado nidaamka macallimiintiisa waxa qoran waa nidaamsan yahay laakiin arday war uma hayo maba soo baxaba xafiiskiisa calaaqaad ma jiro qofkaas xataa macallimiintiisa iskuma fahna markaas marka miftaaxayada dadka isku xira waa calaaqaadka waxaa ku xiga deganaanta ijtimaaci ahaan qofka xataa inuu nafsiyan qof degan yahay waa muhiim qof aan isagooba noloshiisa u deganayn oo daatadiisa u deganayn muxuu maamuli karaa isagaaba dhib haystaa marka waxyaalaha wax saameeya idinku waa ogtihiin waxa wax saameeya xataa gurigaada deganaansho ma ku haysataa magaalada deganaansho ma ku haysataa nafsaada istiqraarka waa nafsigu ka bilowdaa waxaan u baahannahay khaaridad u baahannahay khaaridat alwusuul qofku inuu khaarida leeyahay khaaridado waxaan u baahannahay wax qiimeyn qofku inuu isqiimeeyaa wax ilaa nafteenaan ka bilaabaynaa kadibna waa inuu wax ka bedelaa wixii uu qiimeynayo intaan naftaada haddaa ku samayso hal tusaale ka soo qaad naftaadu ay leedahay dabeecad ay leedahay dabeecadaas inaad jartaa rabtaa ka soo qaad hal dabeecadaan leeyahay oo ah mar kasta mobilkan ku dhegana hal dabeecadoo jirto soo kordha waayahan waay inaan iska jaraan rabaa intee ka bilaabaa ilmaha maandhaha caruurta iska jara mase anaa iska bilaabaya inaan go-aan qaata ani naftu waxay oran doontaa qof kasta oo go-aan qaata fiiriya marka aad shay go-aan qaadato inaad same istiraahdo 100 shayga imaanaysa oo ah samayn mobilkaas markaad tiraahdo iska dhaaf kuwa aan ku soo wici jirno muhiima ku soo wacyo arrimo muhiima lagu sheegaya bini aadamka hadduu rabo inuu isbedel sameeyo ama shay aad tiraahdo qof hadda balwad leh hadduu go-aan ku gaaro inuu balwad iska jaro sigaar iska jara jaad iska jara balwada mobilka iska jara meelo badan kamid qaybo kamid inuu iska jaro rabaa markaas waxa loo soo hadiyeenayaa intaas oo marduuf qaada awal markuu haduu jaray maanta la soo siiyay dhalinyarada ardada waxaan ku dhahaa dhalinyaradiina mobilada habeenka ku dhagan oo habeenkii oo dhan dheh qof baan seexinaya ku haya ama dad badan seexiya ku haya hadaa go-aan qaadato dadka ay seexisay inaad iska dayso maalinta aad go-aan qaadato kuwa awal aad raadin jirtay oo aan ku soo wicin baa wicid bilaabaya markaas qaadan laga rabaa waa aragtay dadka muslimiinta imtixaanka la marsiiyay asxaabta iyo waxa la yiri ugaarta ha ugaarsanina xilliga xaramka ay ku jiraan xaramka da banaan ka tahay ugaar arki maysid xaramka markaa soo gasho ugaarta meelaha ma maraysaa go-aanku muxuu yahay adaa laga rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishay'in min as-sayd tanaaluhu aydiikum wa rimaahukum gacantiina gaarta warankiina gaara laakiin maxaa laga rabaa liya'lam allahu man yakhafuhu bil ghayb sama ya ilaahay ka baqaya asoon cid kale u jeedin marka go-aan markaa qaadayso waa dhabkaata waa la hubinaya hadaa lagu hubiyo dhabkaata hore u soconay hadii kale waxa ma wali doontid hadii la yiraahdo qiyamka badal qishka oo kale ardayda laga ilaaliyo qish waxa ila tahay qofkii qorshe ahsaan loo sameeyo wax u raadiyay ma idinku jira daliil u raadiyay aayada quraan soo daliistay in loo naxariisto iyo waxaas marka waxay ka mid tahay meelaha ka bilowdaan waay qofka hadda qishaaya baritana waxba lagu ma aamini doono markuu madax noqdana sidii weeye meeshuu tagaba waa qishaya marka waa qiyam la rabo in adigana aad ku samaysata ardadana waxyaalaha aad u cajiib kale meel hadda ka hor aan ka sheegay dadka inay qishka aad ugu jecel yihiin دور قشك إنه أردد قاعته دورك maamulka iyo iskuulka iyo macallimiintu horta door ma ka qayb qaataan qishka hatta fariisinta oo la haleeya qishka ma kamid aho qaabka fariisinta iyo loo fariisiyo samata dawrka maamulida yaa iskala abka loo fariisanayo imtixaankaas haduu haleysan yahay galaashada loo ka qayb qaadanaysa hadda batana dugsi sare form 3 iyo form 2 iyo gale hadii ardada barbar soo isku maqaso la isku daro ardada
waxay yareynaysaa qishka haddaad laakiin kulli ka dhigto macallimiinta qishka rabto inay waardiyaan nooca macallin aad dooranayso dowr soo kama qaadanayso nooca macallinka waxaa dowr ka qaadan doona tallaabada laga qaadi doono qofka qishay qofkan qisha tallaabada laga qaaday haddaad iska qaato uu sabri iska fariisto oo maalin kasto wata qish waxba kama qaban karno waa mabda'a aaminsanaa oo hadafka lahaa bari meeshu tagi doono waxaan aad ula yaabay anoo dhiganaya jaamacad master dhiga meel ku ka dhiganaya waxaa wana waardiyeynaya nin macallin ah oo aan macallin u ahaan jiray ana waardiyeynaya waa fadhinaa galaaska waxaa ku jira arday aan macallin u ahaan jiray oo og qishka inaan qaban jiray oo qish aan ogolayn galaaska igula jiraan waana dhigtaan ani halkaanaan fadhiyaa qofaa iga horeeya macallinkii waxa waardiyeynaya banaanku aaday bal qishka qofku markuu bartay inuu sadeyn karin fiiri qofka iga horeeyay oo aan macallin u ahaan jiray intuu gadaal isoo fiiriyo su'aasha labaad maxaa ka dhigtay waxaan damcayna istaago warqadda ka qaado inta isi looba warqadda ka qaado macallinkii yimid waxaa yidhi kaale meesha ma waardiyeysid kulaha meeshaan adaaba ka cabsanaa kula warqadda inaa ka qaado saabaar marka bal dad ka waran macallinkii uu macallin u ahaan jiray qish sii weydiinay mastara dhigana ardayga lagu aamini waayey warqad imtixaan arday medicine dhigta oo warqad imtixaan lagu aamini waayey see qof ugu aaminaa injineeru bartaa warqad imtixaan lagu aaminay see wax dhisma ugu aamini caafimaad noqotaya maamul iyo maareyn barataya warqadaa lagu aamini waayey lacag yaa kuu dhiibi karaa dhow umulisaa tahay warqadaasaa lagu aaminaya yaa lagu umulina hadhow qofka wuxuu baranayo oo warqad lagu aamini waaye ma garanaya waxa lagu aaminaya marka waxyaalaha oo waxaasoo dhan cagsigeed baa waxay u tahay fasaad inaadan mabda'a lahayn qiyam calaaqaadkii inay liitaan 6dii qodob cagsigood weeye wax kale maaha